بسم الله. الله السلام يا أخي تشرفت له. waxaan ka hadlaynaa siyaasadda hawiye iyo daarood oo maalmahan Facebook isku haysta. insha Allah waa ka hadli doonaa khayr badan baa soo gali doonta marka insha Allah inta soo badanaysa waan sugayaa share gareeya ma taqaana asxaabta kale la wadaaga soo bata marka waxaan ka sheekay doonaa caawa siyaasadda Soomaaliya maanta hawiye iyo daarood inuu isu qabsado oo qabiiladii kale ay qadaan hadii Ilaahay ku idmaayo siyaasadda aan ka hadlayno waa siyaasaddaas dhammaantii soo dhawaada ay leeyahay Cabdisaaq Qawl Qeyliye Nimco Cabdi Cismaan aamin yare iyo dhammaan akhyaarta kale ee soo galaysa soo dhawaada caawa waxaan ka hadli doonaa barnaamij noocaas ah adeer macaan siyaasadii hawiye iyo daarood isku bedis maanta waa u jeedaan daarood Ismaaciil dadkii daarood sheegan jiray ee daarood magaca daarood watay dikay farmaajo aha baa hog la galay ama god buu la galay kamana filayn inuu la galo waayo siyaasi weyn ba u maleynayay siyaasi wax walba ka soo bixi kara siyaasi danta loo dhiibto ka soo baxaya laakiin siyaasi caloosha u shaqaysta ah oo baqti dhalay ah oo laangaab iska dhigaya oo markuu ilmo yar la hadlo oo u soo jawaabay maxay tahay waxa siyaasi baa lagu sheegi karaa waa laangaab Maryam Maxamed aad baan ku salaamayaa Maxamed Abdilootid akhyaarta sharafta leh ee dhammaan soo galaysa waan salaamayaa marka daarood waa in la taliyaa war daarood taradeeda qaad islaamka guud ee beesha daarood baa waa la igu caano shubay wariga ah marka ma ogoli farmaajo madaxweyne sii noqdo Cabdullaahi Maxamed Xasan Shiine Cabdideeq Cabdixamiid dhammaantu waa islaamaya soo dhawaada barnaamijka oo shir gareeya waa islaam maqnaa Facebook dib buu ugu soo laabtay dib baana ma taqaanaa hawsha u bilaabay live-kii baa dib u bilaabay kadib markii aan arki waayay oo u adkeysan waayay wax Soomaaliya oo daarood oo magaca daarood ku hadlaysa oo Facebook ay joogtaa markii aan waayay danta ay baday inaan live ku soo laabto danta ay baday in aan ummadda baalaha ka rifo mar labaad oo soo laabto aniga laagaab dhalay oo mareexaan sheeganaya madaxweyne iima ah daarood magaca daarood ila mar sheeganayo anuu farmaajo waa ma taqaanaa wax u maleynayay in codkar ah nin waxaan u maleynayay wallaahi billaahi tullaahi sannin intuu qabto af Soomaali gadaal shantaba kala bedelaya laakiin nin aan laba eray isku beegayn adeer gacay waxaas madaxweynima waa baqti dhalay waa laangaab mareexaanna waa sheegtaa ninkaas mareexaan maaha waa dhubaante runta idin sheegdaa wiilka ra'iisul wasaaraha ah ee Xasan Cali Khayr la yiraahdo ee hadda maanta dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ka ah ninkaas siyaasadda ka dhaqdhaqaaqa ninkaas maanta ummadda Soomaaliyeed u dhaqdhaqaaqa ninkaas jawaari iyo qaran dumisyaashii kale oo dhulka la galay ninkaas ilmo walba oo siyaasadda ku soo salala intuu qabto caga dhigo dhaaseexo laakiin farmaajo meel aan ka filayna ma imaan war farmaajo magaca daarood ku ciyaar waxaan la tahay madaxweyne waxaan noo tahay madaxweyne qabiil dhan baa ku soo doortay waa lagu caanshubay madaxweyne Soomaaliyeed doorasho waxa ku soo baxday loo dheeyahay wali lama arag madaxweyne daarood ah oo intuu aamusay afka iska qabsaday wax walba oo dhacay waa u jeedaa maanta xildhibaanadii hawiye ma taqaanaa wasiiradoodii wax walba maanta waxay geed gaaban iyo geed hoosaba u korayaan sidii ay ku qaban lahaayeen madaxtinimada dalka haye farmaajo one day intuu soo istaagay ma dhahay warniyow saa iyo saasaa dhacay ma taqaanaa مكان يقولون ممكن باش حتى هذا لا سبب ولا شو هذا ما عنده يتوحى وشذي ما السلام اللي راه وحنا وبصدق وأنتوا الأيها أيامس بفرماتشو أنتوا سوقات الدعاية يقولوا هاي فرماتشو بس مفتر إسكندرية فرماتشو بس مفتر إسكندرية ولا مركا بريحانو أنو دارو بأسلنا ده دارو ولا أصلا للشبانة وإذن لا تهلنا
taladuna mar bay geed ku soo go'daa war taladu waa la isla taliyaay war sida isu dhaamo oo meesha tan ka kaxeeya dhaankan magacuyaalka ah ee iska dhigay inuu daarood yahay daarood ismoodka ah ruuxa daarood uu yahay umaleyn maayo waayo qofka daaroodka ah waa qof la yaqaan sinji iyo farac iyo meel uu ku soo jeeda leh anaga wiil marqaansan oo waa shay oo mooga ah nooma talinayo magaca daaroodna ma matalayo anuu hore aynu ku sheegay farmaajo sidii laga filayay maaha waa la sixir qofkana haddii la sixro waa waasha oo isku dhex yaaca inta goor ay idiin sheegaan inuu ninkaa farmaajo ani caadiya maaha oo anin la soo salaliyey waa nin mataqaanaa cunno wax loogu daray farmaajo xitaa cunnada waxaan soo ogaaday in uusan cunno caadiya cunin oo loo dhadhamin oo cunno aan la dhadhaminba oo balaayo iyo sun iyo wax walba loogu daro haddii la rabo halkaas cunnada laga sixray ninka soodo ibraahim macallim buu aad baan ku salaamayaa wariye dhowneere soo dhowaada sii sheergareeya waa islaamka guud ee beelaha daarood magaciisa ku hadlaya cidna inuu xilka uga magacaaba anaa isu magacaabay anigaana ah waana ku dhimanayaa wax waa ku goynayaa waana ahayd cid baa u haysta waa maya daarood tiradooda xil jacayl heerka ay ka gaareen farmaajo waa ujeedaa baarik dhawud cumar cabdirashiid cali sharbaake baa geesaska halkaa kalarkaa ku haystay xil madaxweynu rabay inuu noqdo cabdirahmaan cabdishakuur ra-iisul wasaare ka dhigto xil jacayl heerka ay ka gaareen maalin dhaweeto waxaa ujeeda kuwo ilahaa facebooka soo dhigay islaamka daarood baan ahay baan dhah waaba laygu qabsaday maba tihiin mid halkaan dhab gabar halkaa igu qabsatay dhaado maba tihiin islaamka kumaba dooran mid kaloo halkan dhaha mataqaanaa maba tihiin daarood waxay waa xil jacayl heerkaasi ka gaareen marka daaroodu isdejiya daaroodu farmaajo meesha ka saara annaga ma jeerteen ahaan haddaan nahay dad waxaan haysanaa siyaasadda ku soo jabay ku midoobaaday qalbigaba siyaasad ay ka gashay soomaaliya intuu qabto soomaaliyada ujeedaan intaan qabanno baan geesgeesu kala rognaa waaba siyaasaddeedaba waa kala jahwareerinaa marka dadkii saa ahaa maanta xitaa mareexaanka lagu sheegay maxamed siyaad baraa ka dhashay ninkii dictatorka dadka leyn jiray maba xuma dad waa leyn jiray dadna waa nooleyn jiray bal maanta farmaajo muxuu yahay horta farmaajo ninka qabiil ku taageeraya waa nin meeshiisa laakiin aniga isagoo igu qabiila wallaahi bilaahi tullah wax uu la joogo ma laha warowninkaana laga bedelo niyo haddaan dhahay dadka daarood ee islaamka daarood haddaan ahay anigu waxaan iclaamiyey oo iga soo go'day wallaahi bilaahi tullah waxaa iga soo go'day ninkaas meesha aan ka kaxayno ama aan keenno nin kale oo u dhaqma daaroodnimo kuma wato maanta farmaajo waa iga soo go'ay islaamka guud baan ahay waa laygu caana shubay shalay baan duraad xitaa caana shubkayga ima uusan soo wicin oo ima oran war waa mataqaanaa waan ku hambaliyey islaam waan ku hambaliyey ima uusan oran bal fiiri waxaasaa madaxweynaha wuxuu og yahay mooge markii la leeyahay waa erey yacni ku habboonaa oo run ah noo runta idin sheegaydaa hawiye maanta waxay dheelayaan siyaasad waxay dheelayaan boqorka silsilad 445 ay dheelayaan aan la fahmayn mataqaanaa daaroodkiina ilaahay wuxuu uga dhigay nin u hadla ama madaxda ugu sarreysa wuxuu uga dhigay ninka la yidhahda farmaajo soo maaha inuu hadlo inuu ragga hadal iskaga celiyo inuu ragga la xifaaltamo inuu ragga mataqaanaa madaxa kala istaago ilaa weli lama arag nin daarooda oo mataqaanaa cunug xuno oo xildhibaan iska dhigayo oo ku jeesjeesayo weli lama arag haye marka haddii uu iska aamuso oo nin walba intuu geeskiisa ula baxo uu iskaga camirto dee maxaa arga calay maxaa jira an wallaahi bilaahi tullah hore ayuu ku sheegay farmaajo waa la sixray ee meesha laga kaxeeyo shanta sano oo hadda farmaajo xilka hayn lahaa kullaba sanad iyo bar waa tageen inta kale mareexaanow nin keensada nin ku bedeshay ra-iisul wasaarihii madaxa diirnaa keena daarta cabdiwali sheekhi maalin walba dhoofi jiray dibadaha aadi jiray wallaahi bilaahi kan wax waa naga soo go'ay yaa akhi maalin walba hadda waxaa maqlayay magaalooyinka soomaaliya kale bar waa laga soo jeesan awalna farmaajo waa lagu waa anigu runtaa inii sheegaya runta kama gabado daarood baan ahay mataqaanaa nin majeerteena baan ahay ninka kaliya maanta waxaan ahay markii la dhaho war daarood dhabarka laga taabto la waro ninkaan waa majeerteen waa la dheero dhalaye ninka majeerteen baan ahay laakiin runta waa lagu jecelahay anigu ilaahay baan ka baqayaa dadka Soomaaliyeed mataqaanaa in beenta ay sheegaan bay jecelahay madaxweyne farmaajo hadda mucaaradnimadiisii waa badatay qof walba oo Soomaaliyeed uu nacayaa awalna waa la taageersanaa waxaan leenahay markii madaxweyne meesha tan iskaga deg meesha tan uma qalantay
meesha tan xilkaa weyn iyo waxaa lagu dhiibay siyaasad aadan mataqaanaa aadan xamili karin marka iska wareejay farmaajo mareexaan haddii kugu taageerayaan qabiil annaga kula qabiil ah oo kaan laxayna meesha wuxuu kuma haysid meesha wax siyaasad ah kuma haysid meesha wax mataqaanaa kula talaya oo daawaralka iskaga deg ma haysid xitaa annagu runta ku sheegaynaa marka wax kulena iskaga deg meesha nin miskiin ah oo siyaasad aan wax ku ogeyn baa tahay iskaga deg oo kuu soo harayaa kuwa hadalka waxay weydiinayaan ma jeerteen ba haddaad tahay maxaa samayn ka dhac anugu jeerteen baana ninku waxaan ahay soomaaliya oo dhan oo aan maamul lahayn maamul samaystay oo gees u istaagay isxoreeyey baana hay laandheeri dalay baan ahay nin aan laga laandheeraysanayn baan ahay ma fahanti waa qofka i weydiinaya maxaa haddaa mujeerteen tahay maxaa tahay anugu mujeerteen baan ahay puntland baan leeyahay puntland oo maanta dowladda federaalka fiican hay dowladda federaal maanta ma jirto dhammaantay dowladda waa awiye daarood baa loo kala baxaa waa la islaynayaa islaankii guud ee beelaha daarood baan ahay maxamuud khaliifo cali waa laygu caana shubay waxaa idhaahday war inta la isla helayo madaxweyne fiican iyo mataqaanaa daarood uu halgamayo farmaajo intaan qabanno aan qashinka ku ridno aan uga tago qashinka dhexdiisa yaa oo runta idin sheegaya qof walba oo farmaajo taageersan dhulka hala galo wallaahi billahi tallahi kuwa waxay leeyihin farmaajo waa daarooda maxaa ka rabtaa ninka daaroodka waradar daarooda anagoo abaar nacnay ninka oo ka dhex aragna oo siyaasadiisa waana dhiftayba waxaa kaloo soo hadhay arrinta guddoomiyaha baarlamaanka mooshinka laga keenay maalmo dhoweyd guddoomiyihii hadda la doortay baa deg deg looga keenay mooshin waa mooshin deg deg ah marka mooshinkaas waxaa keenay ka yidhahda xasan cali kheyre waa guddoomiye la doortay shalay maaha doraad baa mooshin waxaa ka yaala 60 baa ka yaala 6 mooshin ah adeer aan marka siyaadada halkaas ay maraysaa marka siyaadada Soomaaliya waxay maraysaa in guddoomiye baarlamaan shalay la soo doraad la doortay maanta laga keenay 60 mooshin ka yaala yaa ka keenay xasan cali kheyre ka keenay xasan cali kheyre qof walba oo mataqaanaa guddoomiye baarlamaan iska dhigo shantida shacabka dhaca mooshin baa dhahday wuxuu ka keenayaa 9 isku barbara yaa mana baqo wiilkaas waa wiil mursada ah waa wiil is-aaminsan waa wiil xitaa kartidiisa iyo ragnimadiisa ku hadla laakiin farmaajo Soomaaliya ha noolaato dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa saaxiisaas adeer doonameen waxaa annagaa dhihi karna xitaa aad leedahay wax aad u adag maaha marka waxaa idin leeyahay Soomaaliya aad baan guul baa u rajaynaya dadweynaha Soomaaliyeed islaamku mataqaanaa waa in salaamaya maalmaha oo dhan caarashubkii baa socday mataqaanaa farmaajo ima soo hambaliyeen maadaama aan islaamka guud ee baalaha daarood la ii caano shubay mataqaanaa xitaa waxay soo wacay suldaanka dir baa soo wacay suldaanka dir baa soo wacay cabdikhaaliq miyaalna cabdikhaaliq qabilkaa baa la dhahaa suldaanka dir baa soo wacay ila hadlay wuxuu dhahay niyow caano shubkaaga waan ka maqnaa laakiin diyaarad baan soo ingeenanaya oo ku imaanay waxaa dhaa bartaada inuu anaa ku jiray tigid bartaa ayuu mataqaanaa waa halkaas caano shubka halkaas uga dhacayaa wuu diiday wuu sadkeeyey laakiin haddaa waxaa u diray mataqaanaa dad badan oo waxaan leeyahay nin siyaasi baan ahay islaamku ma ahan islaam oo nabadda ka shaqeeyay kaliya siyaasi waa leeyahay siyaasadda waa dhex geli karaa wax walba oo Soomaali mataqaanaa siyaasadda kaga jira wuu samayn karaa madaxweynuhu hadduu rabo dhulka la geli karaa ilaa waa islaamkii dhabaa beeraha daaran hadda farmaajo aan weerari karaa farmaajo ha sheegaysaan waa leedahay farmaajo intaan qabto baan caadi u heli karaa warqad kaliya qori karaa wax dhigi karaa xasaanad waa laga qaada marka islaamka ha yaraysanina islaamka hadalkiisu waa hadal saafi ah weeye hadal ma aha beenbeera qof walba oo Soomaaliyeed oo daarood sheeganayana waxaan leeyahay ninka magaciina iyo maamuuskiina iyo sharaftiina iyo haybadiina uu dhulku la galay wallaahi billaahi tullahi nin walba oo daarooda runta hau sheego urnow farmaajo annaga isku mantiin aad baan ku salaamayaa Amriik walaalkiis simiirka aad baan ku salaamayaa meesha xiniyaa loo baahan yahay ragatinimo iyo rag iska dhicis laba baana Soomaaliya ha noolaato dadka Soomaaliyeed waa jecelahay iyo qiiro jabaan nabad iyo nolol wax aan loo baahnayn farmaajo lagama fadhiyo daarood baa meesha u joogtaa iyaga mataqaanaa matasha haddaadan iyaga wax u keenin gaadar gacali waxba annaga naguma oolin qof walba oo Soomaaliyeed maanta farmaajo lagu hayn jiray maantana waa kawaa lagu diiday yaa waa islaamkii oo idin salaamaya oo caawa qiiro jabaan mataqaanaa ninkii farmaajo ahaa
مقدر من السياسة حمديسة خيارات شرفت له وإذا السلام يا دمانتين خضر اللول حمدي أحمد قفل بقى في الماتش تاجر السنة الماتش كلكم قليا الماتش السياسة دي سؤال فهم ويا القعلي هذا هو اللي دور أضو متيرتيرا ولاندير ملايئة وكذا شيء بدك بقرطويرة وكذا شيء بدك الصومالية وبلا دولة أمام القسميستي ودوني رئيس استاجي وأسحري ولانديرها واللعباء سياسيين قدرتي سيدا أيهين يحلالك أي سوهين ترين يوحى أيهين يا فرماتشو عايدة أما فرماتشو وحكا شيكتا أما فرماتشو مليسة كوا أيدي دورة لكن واحد ليه تلونا لسوليه ولا حدث أنت اللي هو أنت اللي سودوني أنا فرماتشو من إسلام وجود بالها دار الدور تبعنا هاي الوضع على شوي حتى ما أنت وعشة وقالوا واي تبري قامي ما كمان أنت وعشة وأنا توصلوا سيرجرية وهذا أوجي مدحتويه كتير وكونفيوز بقول عايل ورواشد كاس الله عليه نك الله عليه الحلبان ما طلع تكيلوا واي من الحلبان من مدحوينا حتى أسكتيت الماء والله بالله نكاس أسكيلوا واي أف مفران كرو بس كمان دعي كرو وردي كرو ورسائي أساس له والآب بانكو سلام يا فرحان يقول ما كفرمات نك تخبين كنت هجيري وارمات أنا قاعد دارو annaga waliba waxaan ka dhalanay dadka daarood laga xusho in la dhowr daaroodne waa mateerteen waa dhulbahante waa ursigeli dadkii lagu xushay baa haddii anagu ka keenno mooshin layfa mooshin ma caadi ah oo waraaqa mooshin layfa oo isku dhowr qadig doctor oo saa u qoro hal qaado degdeg uga dagayaa meesha farmaajo waa xaadmaajo wax uu joogo ma laha siyaasadda Soomaaliya waa ku ciyaar dhulku la galay dhulka looga iyo xarmaajo wax loo kala garay kuwa waxay dhigi doonaa nin hawiyada farmaajo ku dhagana maxaa ninka waxa uu soo safartay hawiyaha baa war hawiye laba safar anoo daarood oo magaca daarood ku hadlay oo islaamkii guud ee meelaha daarood ah baan waxaan ilaahay war farmaajo tartiib la kabso war tartiib ila tartiib min baa adkoor din goobta dabino ku dhaco tartiib la kabso yani tartiib ايش هذا ugu dhac laakiin bal hoos soco waxa la yiraahdaa soco farmaajo siyaasadda Soomaaliya oo la galay xitaa tartiib uma soco kama fiirsan wax biri dhici doona ya waxa maqli jiray nin guudiga kuma dilin war islaamkii guud baa kula hadlay war ninka maanta markii Soomaali am daarood u hadlo hadalka laga qoro baa kula hadlay war sida isu dhaan farmaajo hadii kala warqad baa hadda soo qoraya warqadan soo qoraya ka kacway waa asaas xilka uga dhigaysa وأسلاك جود إبلاها دارد وعاو أفكفت وأنا إنك بقين وكنت أشيء فرماج إذا تاير سحار ماج باي السلام يا خيار تشرفت لي برتا صاحبه كل هاي واحد اللي يعني فرماج سيده هالموضوع هذا السلام يا